السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا channel كنا هنا فيلمز ونواتين هنا فيلمز يا ما أنت محني وضنا واني مو النار اسكت عاو وحني وضنا محي هذي أدو برنامج عصب أنا قلت لك الله أنت رمضان تكورس إن شاء الله يلا رمضان تبع إنا نسوق كلنا هذا البرنامج كاسمحونا قناة برنامج كاسمح ويان برنامج للنهار شاه يو شيك وذاك أوكي سيدا مجلس عاد كذا دانسنا سامبا برنامج شاه يشيك وذاك شيك وذاك محاطة وحويان قف أيان وقلب ويدين ناشيكو كود عليك تاسيو آد وقصده أما آد ويابضا أما آد وقيربضا qof sheeko ku dhacday kolba habeenba qof ninkeenna maanta waxaan ni wadnaa abwaanka kooxda jilaa kamida kooxda gudoomiye kooxda abwaan xikam kaas oo nooga sheekay doona iliga soo dhicbay sheeko taasi oo kala dhacday isaga ku dhacday marka insha Allah intayna sheekada bilaabin waa anigu xamse baariya iyo walaalada garabkayga fadhiya ee teamka iyo maftuux oo ah kameradmaanka kooxda editorka kooxda nafara macmacaan nafara furfuran ina aragtaan muuqaalku duubayo ina aragtaan hawshu ku jiro ya marka maxaa heeday anigu xamse baariyo waxaan leeyahay abwaan xikamiyo adnan siike marka hore barnaamijka ku soo dhawaadaano hayna salaamaan masha Allah horta asxaabta waan xiisinay in muddo aan soo fadhiisano oo ku faraxsanahay inaan asxaabta mar kale soo hor fadhiisano mashruucan quruxda badan wilo aan meel booq la joogno bariyahan dad baa oran doona meelaha booq la ku baahan horta waan salaamnay salaanta ka bacda qisada waan idin ba furi doonaa laakiin walaalkeen soo kala hayeen salaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان تاجرياش هنا في المس واحد لنا هيد إسكسون لابشون وناكسن إسكسون نقد وناكسن ما دام بريان كذا راجلي ولو دي عن إذن مشغول سنة عند تصل إذن كان عاون واحد دي وانا شيكو أصدي واحد رجيني إني يديك هنا إني يديك هنا أدي كود قصدين دونتو شيكو واحد ولا عساتهم waxaan ka baxay magaalada oo waxaan u baxay xagga baadiyaha inta magaalada ka baxay xagga baadiyaha u baxay show baadiyaha iyo inaga farqi baa inoo dhaxeeya markan baadiyi tagay habeenka aroos baa la tagay dhalinyarta aroos baa isku diyaarisay jiw waxa ay rooban irku roob lahaa god curdima bay laakiinay oo cadama ahayn markan baadiyi tagay dhalinyarta habeenkii arooska soo waxa sameeyaan dhalinyarta baadiyaha inta badan way qayilaan markii arooska tagayaan waxay sameeyaan intayna arooska hadii arooskaas mid hadii ma aragtay gabadha laga guursaday reerkooda ma tagaan arooska ma galaan gabadhana taas waa dhaqan gabadhana marka waxay gabadh reerka aan joogay reerkayga laga guursaday oo loo guursaday reer kale kadib dhalinyartii reerkani aan joognaan ku warniyo arooska leedin aan tagno say ku tagi karnaa waad ogtiinoo gabadheeni warniyo ma haysid qorshe anaga qorshe ku haynay waxa la tagaa aradka reerka ee arooska lama galbayaan cidna kuma ogaanaysa marka aradka reer maxamed duleedka ninba si uu yaqaan duleedka reerka ma reerka agagaarka arooska kadib iyagu way qayilayaan Soomaa fiidkii waxay sameeyeen maadaama iyagu qayilayaan waxay sameeyaan maadaama qaylaan maartay iyagu maadaama qaylaan arooskina ay geli kareen reerkooda ku siyar qayilaan kadib ragga oo isku leeyay yaan ku arooska aan idin raacay haye waan dareernay waxaan tagnay arooska waan tagnay duleedka reerkan tagnay waxaan nahay dhalinyar fara badan waxa ku jira kuwa adeeriya kuwa walaalnaha aniga yar xitaa laakiin aan iga firfircoon oo waxaan active ka garanayay يعني jooga meesha ajendaha ama hadafka meesha loo tagay waxa weeyaan in hadafka meesha loo tagay waxa weeyaan in la tirusato shukaansiga miyiga iyo magaaladana farqi baa u dhaxeeya farqigaas oo aad marka kii magaalada taqaan isma lahayn baadiyaha isku mid baan moodiyo ninka baadiyaha joogay gabadh la sheekaysto waxaan moodiyaa arooska dhexdiisa inay heblaha inama la soo dhano halka la maray wadada show labada qof ay isjecel baadiyaha jooga hadii aroos isku yimaadaan xitaa shaqo isku malay gabadha jeclayd nin kala u sheekayn adigina iyadoo ku arkaysa adigina iyadoo ku arkaysa adigina gabadh kale oo sheekaynaysa
kadib waxa dhacday arrintii baa la yaabay horta waxaan niyo gabdhahan meen ay sheekada gin jireen qoyska daa waxaan idhi niyo arrinta su'aasha isweydiinta waxay tahay gabdhahan iyo wiilashan shukaansimeen ka dhaxayno maan talaban isku leeyahay dahib laa ayna marmay jirin mayin waxaad ma jirtay gabadhaas ku baxay kartid ku baxba leeyahay ma saas ah hay aradkii baan istaagnay gabdhihii baa aroos ka soo daray dhalinyartii dhex fadhiyaan oo aradkan ku qornayno ma aan guriga gelin gabdhuhu show waa bal isku dhigdhigayaaba dhab marooyinka shalmada la isku xidhaa shalmada si aan loo kala jiido budnoo la qaata bis kabta la dhacaya kabta la baxaysa waxa dhacday aan sheekada idin wade waxaan arkay iyagoo la isku dhigdhigsan yahay arkay kadib waxaan sameeyay waa fikiray markaan arkay xaaladdu khalaadhay wiil adeer baan u yeedhay waxaan ku weydiiyay arrintu khalaadhay sameeyana waa sidee warraqayo bigu ardo waxaad samaysaa gabdhahan waa la kala jiijidaa mid uun jiido taad ka heshid waa ku halkaa socdo dhab intaad si jiido taad ka heshid jiido haye baan idhi waxaan daba socday ilaa 7 daqiiqo ama 10 daqiiqo yaan halkii daba socday show dhalinyartii aan la socday anigana fikradda iga xun dhalinyarta isku reerka iyo waxa raacaan gabdha isku reera si ay hadhow markay reerka u geeyaan ay u soo wada noqdaan iyaguna ninkana jihada ma bahaysatidee يعني قرجة هذا gabdha baas leeyahay inta saaw eego talaba mataas midun dooro mid baan ku adkaystay markaa haye midii baan ku hagaagay show dhalinyartii ila socotay fi dadkii midba mid la hadhiyo ku jira midba mid bula hadha way iga wada hadheen anigu gebiga waxaan la soo reer kale oo qalaadimka telefoon baa bigaada kale tago telefonkayga charge waxa ugu jira 5% ay ugu jira flash ma shidan karo waa gud curdima kama fikiray hadhow yaa ku soo hoyniyo maxay ku dambeyn doontaa sheekadaadu gabadhii la iraaciyo marka taa qaban bay ugu qufreen waxay socotoba waxa dhacday waxaan arkay gabdho inta la jiidanayo kolka la qabsado kab inta la baxdo dhabanada wiilasha kala dhacaysa dib baa soo noqday ma geli kartid baan kulaaga يعني haddana waa isku qasban xasanniyo wiilasha gula socday hebel iyo hebelba way ka haysteen ma imika dib u noqon ma kordo qanimadaada ku adkaysto hayo aan soo haddana waxay dhahay u qabteen mid intuu gabadh qabtay candhoof inta laga tufayo oo hayaa dal xajisanayo sam kadib waxa dhacday waan iskaga adkaysto waan iska daba socday guud ay hor socdo weli gabdha weli koor hay iyo sheekadaniyo ana farsamo xun oo fareesha oo jeedi la haysanin la waxay u dhaxdana nasiib xumo show gabadhan uu yahay igu sameeyaan qaban doono kaligeed bareer ka timiday hatta gabdha reerka u raacaysa ma jirto wiilal inta raacana marka la soo raac karnaa ma jiraan kaligeed bareer ka timiday ana kaligeed baan ka socda reerkii dhanaayo way wada qabsadeen soo saama waxa dhacay deetana gabadhii waan qabtay sidii la sheegan sameeyo shalmadan dhab siiyay shalmadii aan soo qabtay waa shalmadii laba u kala gooday qorshe lagu sheegay saylood geebood sidii waxa baroor bay gabadhi balow gurtay لا إله اللي ما شدان كسكنا راح نقول والله عليك عليه بلاي هين راح نقول كالي هاي راح نقول دي شرمتها كمان كلجينها والله البرنامج على أنت جاي شرمت هذا نكوسي بيني أنت ما تسوي كرتها راح نقول شرمت هذا أنا كوسي بيني والله الإسوق إيه بقى الله هذا إسكت طلع قاعد الله هذا في إسكت طلع أو إسكتنا ها مي واو شكلي أنا وجهه ها كدب iska ka yeesho iska raali noqotay ay Sandonian ilaa waqti xaadirka ay ugu soo dhicin hebelow halkeed maraysaa ma koonfur baad u jeedaa ma waqooyi baad u jeedaa ma bari baad u jeedaa ma galbeed baad u jeedaa inaan gabadh la joogo man arkayaa laakiin ma aragtid meesha ku socotiyo meesha ka timid meel ay ka sheegin ma garanay go'dan kadib waxaan sameeyay gabadhii sheekada suuqa ay baxday waan sheekaysanay saacad wax weeyaan 12 barkii markaan aan heshiinay shalmadii wixii laga yimid waa 12 barkii dambe habeen barkii waan habeen kala barkii 6 saac dadka qaar 6 saac iyo bar saac waliba haye waa 12 barkii iyo bar saac hadida asaas adu 12 barkii ama 6 barkii ha 12 barkii habeenimo ama 6 barkii habeenimo qof sidoo yaqaan xilligaas ahayd
waxaan soconaba iyadu waxa galaysaa wadada reerkooda tagta aniga waxaas leeyahay haddaad gabadha tiraahayna wala reerkeetiina waxaa badowga kumoodii isxariifiyo jihaday ku jihaday ku marsabaha ilaahay loo lacag iska socdo waxaas leeyahay haddaad tiraahid iska macaaneen haa nuu ha odhan hoo gabadha ragnimo iska muujiyo haye war taleefankayga wuu sii damayaa toosh ma wato wadda ma garanayo iyadana waa isku xariifinayaayo waxaan ku odhi saasaan hor socdaa sheekana halkaasaan shaxaarinimaa samuujinayaa waxaan soconnaba gabadhi watay geysan reer tiin tiinkuna anuu haddii maaragtay luuqluuq la marmaro marka dambe ma garto jihadii meel ahayd waxaa isku wadeegyahay waxaa dhacday inaannu soo gaadhnay reerkoodii gabadh reerkoodii kadib sheekada noo baxaysa awgeed waxaan ku idhi walaalahe aan yar fadhsano duleedka reerkiina sheekada inoo soo baxaye caleemu waa caleemo dhaadheer waa xilli barwaaqa war tiinkanna waa tiin lagu baahayo kadib markaan tiinkii dhex galnay reerkii galnay yaan salka dhuga dhignay oon fadhfadhiisannay haye markaan fadhfadhiisannay sheekada noo baxday raah baa dharraqda haya robadahay raah baa dharraqda haya caleemu waxay leeyihiin dabaysha saa luleysaa laydha war gabadhi waanaga halkii iska indi saacaddii man hal mar eegayoo kowdii iyo barhkii toddobadii iyo barhkii habeennimo kadib gabadhi waan ku idhi yaa walaalhe markaasaan xasuustay inaan meeshan ka imid waxaa tiri hal maro bay igu soo dhacday sida laydhka tabaya koyni meeshii aad ka timid ma garanaysid kadib waxaa sameeyey waxaan ku idhi walaalhe berri baan doonaya inaan magaaladii tago waqtigaa ugu yaray dee taleefonka kala qorano isxariifin taleefonka kala qorana soo hadalno taleefonka kala qorannay waad kala qorateen hal marun bay tiri hay'adii walaal ismaaciil salaamin waa waqti dambe reerkii makan ahaa xaafadda ma ku gaarsiiyay baan weli sii leeyahay waa kaxeeyey xaafadda waxa iga yaabsan waxay tahay ama gabadh ha maqnaatay ama wiil ha maqnaaday xaafadda waxaa loo oodaa bismillaahi raxmaan raxiim meel la leeyahay malaha cidba soo geli oodii baan ka guray gabadhii xarootay mar baan is idhi toosh ma weydiisataa waxaas idhi ceebtaada haddaad gabadha toosh weydiisatid aroosyaad marka tagtay kaaga sheekayn ninba habeenii raacay oo nin mooday oo adiga markiiba toosh weydiisay xakaale stiil baad ku dhimanaysa stiilka ku dhimanay iyadana waa isbaray war markaan saa uga dhaqaaqay taleefankayga shut down noqdo dabay markaan saa uga dhaqaaqay aan reerkooda dhex joogo war markaan reerkii dhex taagnaa baan garan waayay jaal iyo jaan u dhaqaaqo aan siraa xaggan reerkaa xigaa meel aalaya meel war ama qulaata macdahaata reerka jeedi horta xaggan ka socday aan ku socday baan garan waayay halkii baan istaagay allah maxa ood baan istaagay waan fikray isrinii waxa samaysaa waxa yaqaanaan xerooyinka adhiga lagu xareeyo aragtay toosh inta ku xidhan xarig bay saa u laalaadiyaan xaafad intaad u dhacdid ama tuuga wax kasta ahawe soo xabxabe toosh ku hooyo halkaas gaadhay inaad halkaas toosh soo qaaday mar alle markaan xaafadda isku qaadqaaday xaafadii oodeedii sawiro xigaba oodii dul taagi lahayd unbaa hey aan maqlay islaasha badweyn baa gurkiisa booday firkig inta oodii ka booday oo oros dhigay ma garanayo halkaa fogaaday sidhibka ciddo kaba daba socoto yaa hartaa fadhiisaan nasta oo fikra waalidaada maxaa ku wadi adiga kolkii hore waxaan ku wata ma geris wax ku wata markaas ka soo noqotid baa ka fikiri anoo yaaban waxaan sameeyey marka waan fikiray cilmiga ilaahay tusbax baa qoorta igu jiray tusbax baan la soo baxay tusbax gacanta ku wateen ku werdiis lahaa unbaa hal mar waxaan isxasuustaa anoo ku werdiyay maan sarkay niman qooqdilin ma dilo niman qooqdilin marood ma dilo anaa ku werdiyo maan sarkay acuudu billaahi anaa nafteeda waxaan sheegay waalida ku keentaan dilahay mad iska seexatid adiga waxaan sidhi jihada aan ku toos
haye haa عاد كصباح ونبار وانا بارك lacagta ma aragtay garbi ka dhaadhacda yaa reerkayga agma lacagta ma shanqadheeda maqlay hay kadibna biyo socday yani guulahay ها lacagtii baan waa inaan garab socon dareemay waxa garab socdo waxaan ku soo dhacan wadada qabri biya ka tagtay reerkayga tagta hay laakiin ma garanayo meeshay kaga dhacdo in tii reerkayga waa caanisay halkii baan istaagay nin show ka yimid magaalada oo isbixiliga gooreynaya uma kibas ka fadhi hay anu waa dhacnay ninkii baan ku waayo taado way isaga uu adiga ahayd isna waxba ma sheegin alla xamash laakiin waxba wataa yaa ahayd baan ku ori oo aad bayaa tahay buu ori hay isoo sheeg baan ku ori isoo sheeg buu ori tooshan buu igu siiyay gebigay baan waxaan saarkaa khashafan waa aniga waa isku dhaxyaacay maxaa xilligan koodey buu ori